السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان أرجع سؤال هذا قلب وناكسن أنت حسد صوح حاضر طيب صوح حاضر بقى وحان هر أسوق هذا ني عشر كي كوبات تقدر كسيدات أرتدى بايثاغورس وحان فيها إن سي أمسترن لو فهمي ما أنت وحان وجود بين 10 كلمات أو فوقانك ودحيس لaba barood casharkan waa casharka labaad ee chapter sideedaad hadaba ila socda fogaanta u dhaxaysa laba barood masaafada ama fogaanta u dhaxaysa laba barood anaga oo ka faa'iideysanayna aragtida Pythagoras waxaa lagu helaa fogaanta u dhaxaysa laba barood sida tan d oo laga wada fogaantii ama masaafadii waxay la mid tahay xid laba jibaar bracket x2 minus x1 whole square plus upper round bracket y2 minus y1 whole square. hadaba qaabka loo proof gareeyo aan sabuurada wada aadno qaabka loo proof gareeyo aan sabuurada wada aadno qaabka loo proof gareeyo waxaan proof gareey doonaa qaacidada fogaanta u dhaxaysa laba barood iyo halkay ka timid fogaanta u dhaxaysa laba barood fogaanta dhaxaysa laba barood shirkayna maanta casharka labaad wuxuu ku saabsan yahay fogaanta u dhaxaysa laba barood hadaba proofka qaacidada siday ku imaatay aan isla soconno anagoo ka faa'iideysanayna aragtida Pythagoras waxaa lagu helaa fogaanta u dhaxaysa laba barood sida tan aragtida Pythagoras soo qaadanayna waxaa sawirnayna horizontal line iyo vertical line line taagan iyo line jiif ah kan caawa x axis y axis dhidibka x iyo dhidibka y intaan waxaa loo yaqaanaa xariiqan waxaa loo yaqaanaa dhidibka x tan waxaa loo yaqaanaa dhidibka y caawa dhidibka intan caawa dhidibka y haddii aynu soo qaadano masaafadan marka labadan bar fogaanta u dhaxaysa markaan raadinayo markan waxaa loo yaqaanaa barta oo ah x1 minus y1 x1 laga jaray y1 waa barta a barta b na x2 laga jaray y2 xariiqan ay la sameynaysa halkan wuxuu noqonayaa aragtida Pythagoras anagoo ka faa'iideysanayno halkan waxaa loo yaqaanaa c abc waaye halkan waxaa lagu magacaabaa y2 minus y1 halkan hoosena waxaa lagu magacaabaa x2
minus x1 maadaama shakaalkan dhinaca sadexjibaarna quman loo yaqaano c oo lagu heli jiray square root a square plus b square sidaasay leeg halkaana waa a halkaana waa b kan waa c waa a waa b waa c saa darteed marka masaafada distanceaha u dhaxaysa laba barood waxaa loo soo gaabshaa d waxaa lagu helaa calaamada square rootka noo soo qaad square root a square a oo u taagan intaan waxaana u taagan intaan x square minus x2 minus x1 whole square dan waxay ka imaatay a square ayay ka imaatay plus therefore y2 minus y1 y2 minus y1 y2 minus y1 whole square da waxaa laga rabaa inaad kor ka xifdiso qaacidadaas qaacidada u dhaxaysa fogaanta u dhaxaysa laba barood waa qaacidada aynu ku heli doono waxaan dhahnay halkan c u taagantaa dhahnay c halkan waxay u taagantaa dhahnay a b c waa isku mid intana waxay u taagantaa dhahnay halkan waxay u taagneed halkan x2 minus x1 aa loo yaqaanaa halkan y2 minus y1 waaye markaan raadinayno a laba ku jibaaran eeda waxaa u taagan booska a x square x2 minus x1 aa u taagan oo whole square plus bna waxaa u taagan halkan a nooga halkaana b halkaana c qaacidada distance ama fogaanta u dhaxaysa laba barood waxaa lagu helaa d equal x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square qaacidadaas qof kaste maskaxda ku qabto waxaan u gudbaynaa iminkan tusaalaha koowaad waxaana la weydiiyey tusaalaha koowaad wuxuu dhacayaa sidan raadi fogaanta u dhaxaysa labadan baro barta koowaad oo a waxaa lagu sii minus 1,4 barta labaadna waxaa lagu sii minus 1,6 haddaba sabuurada aan wada tagno su-aalaha koowaad waxaana la siiyey given givenka waxaana la siiyey barta koowaad ee aan u baxsanayna barta koowaadna la siiyey waxa waaye minus 1,4 xaqaw nala siiyey laba barood waaye barta bina waxaana la siiyey minus 1,6 minus 1,6
aan la siiyey haddaba waxaan la weydiiyey masaafada u dhaxaysa laba barood masaafada u dhaxaysa laba barood aan la weydiiyey qaacidadii soo qaadanaynaa masaafada u dhaxaysa laba barood waxa loo soo gaabiyaa d distance formula waxa English loo yaqaanaa masaafada u dhaxaysa laba barood waxaa lagu helaa laba jibaarka soo qaado laba jibaar x2 ardayda ila socda minus x1 oo whole square plus y2 minus y1 whole square kuwaad u dhaxaysa laba barood qaacidadaas lagu helaa haddaba barta koowaad kan waxaa leenahay barta koowaad ee nala siiyey minus 1 comma 4 nala siiyey waxaa leenahay waxaan u sameynaynaa magacyadooda kan waxaa loo yaqaanaa x1 barta koowaad x1 kan waxaa loo yaqaanaa y1 waa barta a barta b sidoo kale iyaduna waa minus 1 waa minus 1 comma 6 minus 1 comma 6 kana waxaa loo yaqaanaa x2 magacyada inaad ku qortid waa labada point inaad kala fahmi karto tan waxaa leenahay y2 x2 y2 barta koowaad dhahane x1 y1 loo yaqaanaa kan x1 kanna y1 barta labaad ima minus 1 kan waxaa loo yaqaanaa x2 6 waxaa loo yaqaanaa y2 waa ku bedelanaynaa xasmeynaa by substitution kaliya by substitution waan ku bedelanaynaa bes waxaa leenahay qaacidada noo soo guuri laba jibaar bracket for x2 waxaa nala siiyey minus 1 soo qaad minus 1 x2 inta ku qoran halkaan ka fiirina x2 waa kan waxaa lagu siiyey minus 1 minus kan sharciga soo qaad minus x1 na minus 1 nala siiyey bracket for maadaama x1 ka uu minus wato waxaa waajib inaad bracket aad gelido kadib whole square dheh plus lagu daro y2 waxaa nala siiyey 6 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 minus ka sharci soo qaado y1 waxaa nala siiyey 4 whole square danna square saar minus 1 kan waxaa lagu siiyey x2 minus 1 haysata minus 1 lagu siiyey minus kan sharci waaye x1 kaagan waa minus 1 qoysa gelina square saare plus y2 waxaa lagu siiyey 6 waa soo qaadane minus sharci soo qaado y1 4 lagu siiyey sideed u soo qaado sidaa darteed calena defo sidaa darteed distance waxaa lagu helaa hor u soco shaqada qabo waxaa leenahay ila socda ardaydeeda waxaa leenahay minus 1 kan sidiisa u soo qaado bracket 4 minus 1 minus kan minus 1 ka soo qaado waxaa leenahay minus kan iyo minus kan isku dhuf inta waxay noqonaya plus intana xag soo baxaa hal then whole square saar plus
6 minus 4 iyaduna waxay noqonaya 2 waxaa saara 2 square saar 2 square halkan labadan way kala jarmayaan hore u soco distance formula d soo qaado alweela laba jibaar minus 1 kan iyo plus 1 kan way kala jarmayaan 0 0 square saar plus 2 dan laba jeer isku dhufo akaas ay noqonaya 2 laba jeer isku dhufo 2 soo qaado iyaduna square saar 2 iyaduna square ka saar si aad u soo qaado saa darteed hore u soco leenahay distance formula waxaa lagu helaa ebertan laba jeer isku dhufo waa eber lagu dara labadan laba jeer isku dhufo waxay noqonaya 4 laba jeer isku dhufo waa 4 laba jeer isku dhufo waa markaan waxaa gelinaya square root equal hadee eber 4 ku dar waa 4 jibaarka 4ta sidaa darteed imtixaan u yaal d waxay la mid tahay radical 4 4na sida jibaarka waxay ugu baxdaa sidaa darteed distance formula e fogaanta u dhexeysa laba barood waxay la mid tahay 2 4 sida jibaarka waxay ugu baxdaa 2 kasay ugu baxdaa jawaabtuna waa fogaanta u dhexeysa labadan barood bartan a iyo bartan b waa 2 haddaba aan u gudubno tusaalaha labaad wuxuu dhacayaa sidan raadi fogaanta u dhexeyda labadan barood laba bar lagu sii 5,3 iyo 1,-1 oo labadan barood fogaanta u dhexeysa raadi aan la weydiiyey haddaba sabuurada aan wada aadno aan masaxno tusaalaha labaad barihii aan soo qorano barta koowaad aan ba u qaadano barta koowaad oo nala siiyey waa barta koowaad ee nala siiyey waa 5,3 barta koowaad lagu siiyo barta koowaad marka lagu siiyo waa inaad kala qorato x1 y1 waa inaad ku kala qoran karto taas u faham barta koowaad waxaa waa x u qaado shanta x ay u taagan tahay kan x u taagan yahay kanna y iyo ha iyo y u kala taagan yihiin barta ta'na waxa waaye 1,-2 waxaa lagu weydiiyey sidoo kale fogaanta u dhexeysa labadan barood qaacidadan waxaa ka qabanaya kor fogaanta u dhexeysa laba barood calaamad su'aala saaran fogaanta u dhexeysa laba barood waxaa loo soo gaabiyaa d fogaanta u dhexeysa laba barood waxaa loo soo gaabiyaa d waxaan leenahay laba jibaar
حيث لو جبار x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square fogaantu dhaxaysa waan haysana hadaba bartan x1 y1 waa kana waxay noqonay x2 maadaama barta labaad ay tahay inta waxay noqonay x2 kan kood maadaama x1 aasayna kana kaas maadaama y1 aan dhahnay kan maadaama y1 aan dhahnay y1 waa kaas intana waxay noqonay y2 intaas maskaxdana ku heysid waa baraha lagu sii aan ku celiyo mar kale halkan waxaa lagu sii 5.3 barta koowaad saan markay tahay waxaa lagaa rabaa inta inaad u qaadato x1 intana u qaadato y1 barta labaadna 1, minus 2 aa lagu sii x1 y1 barta koowaad qaabkaas u qaadanay barta labaadna waxaa waa iyaduna x2 y2 shaqada haddaan guda galaynaa marka x2 maxaa nala siiyey waa x2 waxaa nala siiyey minus 2 x2 kan waa x2 aawe afwan x2 waxaa nala siiyey 1 x2 waxaa nala siiyey 1 d waxay la mid tahay qaacidada soo qaado x2 waxaa nala siiyey 1 minuska sharciga soo qaado x1 waxaa nala siiyey 5 bracket ku xir square saar plus y2 maxaa nala siiyey waa y2 waxaa nala siiyey minus 2 soo qaado minus sharciga soo qaado asna minus y1 waxaa nala siiyey 3 kana waxaa nala siiyey 3 saa darteed waxay la mid tahay xillo jibaarka sidiisa u soo qaado halanahay 1 minus 5 hal minus 5 haddii laga jiro waxay noqonaya minus 4 waa kala calaamad wixii kala calaamadna waa la kala jaraa kadibna kan weyn calaamadiisa qaadanay shantaa weyn shantan waxay wadataa minus plus minus 2 minus 3 labadan way kala jarmayaan inta waxay noqonaya minus 5 انت حاصر سكوير minus 5 square ورؤوسه وكان دو دايس لو برد او دي لو سو غابشو waxaa lagu helaa minus 4 hadii laba jeer isku dhufano waa 16 minuskan laba jeer isku dhufo waa plus oo noqona 4 ku dhufana 4 ku dhufo 16 afar rulufta laba dhimays powerka labada wuxuu ku sheegayaa inta jeer tirada hoose aad isku dhufanaysid maadaama uu laba yahayna waxaa la jeedaa tirada afarta laba jeer isku dhufo balaas dheh lagu dare shantan laba jeer isku dhufo shan ku dhufo xaaleena 25 minuskan laba jeer isku dhufo isna wuxuu ku noqonayaa plus minuskan laba jeer hadii la dhufto waa plus hadii lagu dhuftana waa plus isna ogaantu dhaas laba barood oo la soo gaabshay d waxaa lagu helaa waa isku dareynaa markaan koowaadka iyo koowaadka isku dareynaa waxaa leedanahay waniskan iyo waniskan isku dar 5 6 ku dar waxay noqonay 11 waa hal qorana xaawdana hal halkaa wati halkaa ku dar 2 ku dar 4 inta waxay noqonay 41 xidid jibaar ma ka baxdaa waa 41 xidid jibaarku ma ka baxdo
waxaa galaya jajab yani waxaa galaya dhibic aa galayso haddaba yani dhibicdaa soo saareena santifigaaga lasoo baxe xaadhe radical xidijibaarka meeshuu qoran yahay taabane xidijibaarka xidilawjibaarka meeshuu qoran yahay taabane radical 41 aa taabane radical 41 markaa taabatid waxaa kusoo baxayo 6.6 dhibic 4 eber maadaama distansaha yani lagu halbeego maadaama distansaha lagu cabiro mitir fogaantaana aysan wadan wax cabir ah waxaa raacinay halbeeg halbeeg dhibic 4 eber halbeeg aa raacana 40 ma dhehaysi haddii dhibicda wax inta kasoo jiro in laisku qabto ma ahan xisaabta markaan joogno raacinayna halbeeg markas waxaa raacinaya halbeeg tusaalaha labaad halkaas ayuu inoogu egyahay tusaalihii koowaad waxa inoo soo baxay labada halkaas maa kusameynaa maya fogaan maadaama fogaantu yani lagu cabiro mitir aysan wadan wax halbeeg ah mitir iyo kilomitir yani halbeeg weyn halbeeg yar maadaama ay leedahay aysan wadan wax halbeeg ah laba keliya soo qornay laba maahan waxaa leenahay labo halbeeg unit raacine halbeeg waxaa loogu dhigaa marka halbeeg waxaa waaye unit waaye unit dhow markuu raaco inaa qaabkaas u raaciso ayaa loo baahan yahay haddaba waxaa intaas inoogu xigi doona layli su-aalahan wixii aad fahmi weyso commentiga bal inooga reeb si aan usoo xaliyo commentiga hoose bal halkaas igu dhaaf su-aashaas hebel su-aasha saddexaad su-aasha afaraad waan fahmi waayo soo dheh haddaba layligan waa 12 su-aal raadi fogaanta u dhexaysa 2 barood kasta ee soo socda 12 su-aal waayo haddaba su-aalaha waxaa fahmi weyso marka bal commentiga ku reebo waxaa dhahdaa su-aasha 9aad macalin soo xale su-aasha 10aad waxaan markas tixgeli doonaa xusiga ardayda Soomaaliyeed ha noqdaan kuwa iskuul dhigta iyo kuwa aanan dhigan qof kasta arday kasta ee soo codsada waan ka soo jawaabi doonaa codsigiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.